dhegaystayaal caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka naflay fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay. waxaa laga helaa caanagareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne wax nool dhala koritaankooda horena nuujiya. waa dureere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay. sidaa daraaddeed muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan. haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaadadka badan leh, caanuhu soomaalida wax weyn bay uga dhigan yihiin. wax cunto ka badan bay caanuhu u yihiin. waa u nolol, waa u barwaaqo iyo ladnaan, oo waa u hodantooyo. taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada, maahmaahda, sheeko xariirada iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka soomaalidu ka kooban yahay. milgadii bulshada soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed, helidooda iyo haysadkooda ayay isugu ducayn jireen, waayistoodana waa isku habaari jireen. si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan, erayadii ay ku aweytiyi jireen waxaa ugu daraa caana waa ama caano iyo nabadba waa. dhinaca kale, ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraah qofkii haruub caana ah loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay. reerka cusub ee markaa udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano, labadaasoo xoog iyo hodantooyo soomaalidii hore uga dhignaa. allah u naxariistay dablad sagaare ee rimaansayahan la oran jiray ayaa beri tix gabaya ku ducaystay. markaas buu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebbaweyne ku gallado, sida meelo ka mida degaanka ximanood inuu ku cimri dheeraado, aakhire haddii la tago in cadaabta laga koriyo, inta uu nool yahay inaanu caano waayin iyo arrimo kale. wuxuu yidhi, allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada, yaa ceelka daco laydaga iyo kax iyo beer caafi, allow yaa ciraygu habsataye tima cad ii dhaafsha, oo gabadh cadrada ii dhisoo aan iga coogcoogin, allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buur.